رويال تي في وما تقصد الشيء مريس جار أو كليش. أهلا وسهلا. إن سؤال شو هو رئيس عن ربنا كودي حياتها إن سدوا أركتام كهر إن دولة دادة إن ضد الكش قيمة إن درك الصومالية أو صدق سنة كبرى إن حياتها يكون بس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد وحوارك دولة دادة إن لبعض سنة دور لجوء جوليس وإن يكون جوليستي. فضل إله أسكال سبحانه وتعالى ثم تذكير الصومالية نقول هالنقدانه مثلا ما إن لأبو ربيس صومالي أي دولة نما رسمية نبض يهرمن يكون قالي كرت إنه نويا لمانت إن مدحين محاجرت إن روان عشكين من السعودية عشان يسوي إن اللي بعنا الرسول الصومالي إن مثلها عبشة صامين وأيقونة كرتا إن اللي بعنا هي السعودية odayaasha marka ugu horeysa ayaga laga rabaa inay qabiiladooda iyo familiadooda dadka ay ka soo xulaan ay ka fikiraan anaga waxa mar walba ku dhiirigelinayna war dad fiican soo xula barashar mar walba iska imaana dad wax raba nin walba waa qayli doona laakiin qofka waxa sharaf u ah inuu dad fiican oo ku faani karo oo keeno baarlamaanka wasiirada go'aan ay soo saareen shalay mar walba weydiina waxa jirtay raiisul wasaarihi musharax علي رئيس وزراء ورقته وصاري هذا الكادي ويوجد مثل هذا هي جرتين كدولة كمجارك أنت كلمة ثلاثة كل مسألة وكحوم هاي كليته حكومة ده واحد لجربه هؤلاء أو تعالى لجربه أنا أكون مشغولان لكن حفيزك إيجو سوى مجعبه أنا أكون مشغولان أنا وحنا من سنة إنه يهاي وإحنا سيب دراء لكن هذانا بروسيسك جب جوجا سامين خلافك وياك الآدي أقابنت محايا لي رئيس وزراء مشرح قدومية برلمان مشرح أنا مشرح أنا الأركب صندوق السو وحوكها لو كقالدنا لكن وحافي أنا يقول في عناد أيضا لسكوف في عيني هاي عن وحبة جرين إن ما شاء الله تقول دور شذا حلي يقول لو قلت له قال لو أعتنك أقصد ما دعي كرتا يا سلام وجعلها لنا العضلة لكن حوجا إن الدب وقد عيسى مدة إن مدن مدحين إن حاجرت إن مشرحين إلا يطلبات كل واحد أي أتاجن إن حركة إن مدحين هذا الصومالي ويكمل رئيس الوزراء هذه يقدمه البرلمان إن مثل هذا هي كرسي كان أتقف له إن كلمة جارة يوليه ما دام مشرحين بدل أتاجن waxaa u maleynaa haddaan iska kaftamo fadhiga aan ku fadhiyaa iyo marxaladda la soo gaaraa mid macaan ka dhiga marka dad badan ay soo istaagaan laftiga waxay ay tahay waa fiican tahay rajada aad ka qabto balkoor in 40 sano soo socota ku soo laabto boqolkiiba boqol waxaan ka qabaa inaan ku guuleysan doono kursiga insha Allah mudan madaxweyne waxaa jirta ammaanka magaalada Muqdisho inkastoo dawladdu markii ay soo dhisay wax badan ay iska bedeleen haddana ma isleedahay ilaa iyo hadda dawladdu kumaysan guuleysan ammaanka Muqdisho inay sugto gobolada dalka iska bedel magaalada Muqdisho dawladdu inay sugto ku guuleysatay waa garan kartaa meesha hadda aan fadhino bila ka hor lama fadhi karin habeenay maalna magaalada la socda lama soo akarin dal kasto adduunka ka jirana dhacdooyin waa ka dhacay dal 20 sano burbursanay oo alqaacida joogto inuu sidaan noqdo waqti kooban waxaan aaminsanahay inay wax weyn tahay haddana meesha kama baxsana in loo baahan yahay kor loo qaado habeen iyo maalina waxa laga hadlaa si kor u qaadna amniga dad badan madaxweyne waxa isweydiiyaan mushaaraadka ciidamada shaqaalihii u shaqeynaya hay'adaha kala duwan ee dawladda ku meel gaarka muddo 3 bilood ah wax mushaar ma soo qaadan miisaaniyadii dawladda waa ay degsan dadku waxay ku xisaabinayaan xilliga kala guurka in saameyn uu ku yeesho doorashadii iyo saameyn ay ku waxa ugu horeeya waa xilli badxiran oo soo aaday dawladdana budgetka talagalku wuxuu ahaa in kaalmooyin ay hesho kaalmooyinkana muddo dheer ay maqan yihiin oo aan helin marka culays noocaas ah jiray laakiin waxaan rajaynaynaa xilliga soo socda in wax loo heli doono insha Allah su'aal hadan ku weydiin madaxweyne dad badan waxa isweydiinayaan qof markuu shaqo u qabto waxa uu soo marayaa go'aan aad u adag inta xilka aad heysay go'aanka kugu adkaa oo ku soo maray maxay xilliyadii aan soo maray aniga kulligoodaba yani go'aano aad adaga igu soo aadayay
marka waxaan u baahanahay inaan inta aniga diyaar garoobo kulligiin wareysha suunkii waxa aan kaga warramo wada mid u qaadan hadii kale waa ka xiisa dhacaysiin okay madaxweyne waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo gobolada dalka qaarkood gacanta dawladda ku gaarku ay soo galeen qaarkood waxay qorsheynayaan inay soo galaan ma jira qorshe loo diyaariyay inkastoo cabasho ay imaanayso haddana qorshe gobolada dawladda ku gaarka ay ku talagashay in ammaankii ay ku sugto nacam qorshe ballaarana loogu talagalay waana aragtaa u maleynaa hadda labada degmo ugu horeysa waxa laga sameeyay maalin walba sida horumarka amniga oo si bedelayo ciidamada aan haysanaa waa kooban yihiin ina kordhiso ciidamada oo meesha la raba gaarsiisana waxay u baahan tahay dhaqaale iyo dadkuna waxay u baahan in la tababaro mushaarkoodii iyo garamkoodii la diyaariyo laakiin haddana waxaan ku talagalnaa waxa aan haysanaa inaan isticmaalno oo gaarsiino anagoo kaashanayna shacabka deegaanada kala duwan degan oo la abaabulayo beesha caalamka aragtida ay ka qabto Soomaaliya waqtigan maxay tahay qiimeynteeda aniga inay rajo fiican ka qabaan inay arkaan markii ugu horeysay 20 dhowr sano inay Soomaaliya soo gaartay meel fiican wax badan oo aan ugu guuleysan hadda aan ugu guuleystay waxa kamid ah magaalada Muqdisho 20 dhowr sano la soo dhaafay inay dawlad gacanteeda soo gasho ayadoo sidaana ma dhicin horumarka magaalada laga arkayo dib u dhiska iyo dadka ku soo laabanaya laftigiisu waa calaamad fiican Soomaalida laftigeeda dareenkeeda Soomaalinimo iyo dawladnimo oo kor u soo kacayo qof walba oo isxilqaamayo waxay bixinaysaa rajo weyn waxyaabaha soo dhan waxay dhiirigelinayaan international community su'aasha ugu dambeeyay madaxweyne inaan rabo aan ku weydiiyo dadka Soomaalida guud iyo dib u sugan kana walaacsan qaabka doorashada ay u dhici lahayd dhinaca ammaanka maxaad u sheegaysaa أنا waxaan leeyahay Soomaaliya maanta bisayl ilaa xad ay soo gaartay road map kan inta la wado waa hal sano waxyaabo badan oo markii la saxiixay Kampala Accord aan lagu xisaabtamay in dhici doonana dhacay oo lagu guuleystay haddana waxaan leenahay waxa lagu guuleysan doonaa in baarlamaanka la soo xulo madaxda la doorto dawladda la soo dhiso caadina u shaqeyso marka qof walba wixii dadaal oo dhinaciisa inuu ku aada fiican shabaab Muqdisho waxay ka geystaan dilay sidoo kalena Muqdisho waxaad hore u sheegtay xarakada shabaab aad ka safaysay misalada wali dagaalkii shabaab Muqdisho oo ku harsan yahay waxaan rabaa inaan ku sheego jabhadaha habka u dirraan haddii ciidamadooda la jibiyo qorshaha labaad wuxuu yahay inay isku dayaan inay assassination ay sameeyaan assassination-kaas waa meesha ugu dambayso ay ku dhimanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay meesha ay ku rafanayaan oo ay ku dhimanayaan taagan yihiin الله يبارك مدحوينا نيو مامولكي دلكا مدنيو مروين شعب كاملوبو فرحة ميلا بيرين صدمي ليسن غايريين فرحة ميلا بيرين صدمي ليسن